بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Dr. Cabdi Xaaji, dhakhtar ku takhasusay qalliimada furan ee wadnaha, ahna madaxa qaybta wadnaha isbitaalka Somali Sudanese Specialist Hospital. Waxaa sharaf inoo ah inaan maamusno maalinta wadnaha adduunka oo ku beegan 29 bisha September sanad walba. Sanadkana waxay gooni u tahay sanad guuradii 25aad markii la yagleelay in la maamuso maalinta wadnaha adduunka. Sidaan ognahay in ka badan 20 milyan oo qof ayaa u dhimata sanad walba oo ku dhaca wadnaha. 2 meelood ka mid ah dadka u dhinto geeri degdeg ah waxay yihiin dadku u dhinto wadnaha. Sidaas darteed waxyaalahaas oo idil wax laga hortagi karo. Ku dhawaad 80% cudurrada ku dhaca wadnaha wax laga hortagi karo haddii la sameeyo xog tusaaleyn wanaagsan oo qaab nololeedkeena. Tusaale ahaan, qaab cunistaada inaad cuntada cunayso isku dheelitirtid oo aad iska yareysid sokorta, cusbada iyo dufanka, oo aad bedsatid khudaarta wax loo yaqaan fruit and vegetables, ukunta kaleeto, malaayga kaleeto iyo waxyaalaha lamid ah. Sidoo kale haddii aad leedahay balwad sida sigaar cabista kaleeto, inaad iska daysid sigaar cabista, waayo ma jiro wax ka halis badan sigaar cabista oo dhibaato u geysta xididdada wadnaha iyo maskaxda intaba. Sidoo kale waa inaad leedahay exercise joogto ah ugu yaraan 30 daqiiqo maalintii, haddii ahaan lahayd socod, baaskiil wadis iyo dabaal intaba. Sidoo kale haddii ay jiraan inaad qabtid cudurrada dhiig karka, sokorta iyo kolestaroolka, waxaa muhiim ah inaad la socotid sokortaada iyo dhiig karkaaga mar kastana aad qaadatid talada dhakhaatiirtaada. Sidoo kale inaad iska yareysid stresska, kaasoo dhibaato badan u geysto wadnaha, oo aadna badisid xilli fiican inaad waqti fiican aad huridid, saacado fiican oo kugu filan inaad habeenkii huridid. Intaas markii laga soo tago, haddii aad ka cabanaysid inay feeraha ku xanuunayaan ama aad naqas dareemaysid ama xanuunka feeraha ka dareemaysid aad ka dareentid qoorta, gacanta iyo lamida, ama aad dhidid leedahay marka inta xanuunkaas aad dareemayso kale, iyo inaad dareemayso wareer ama aad neeftuuraysid markaad wax yar socotaa ama aad dadaashaa horena aad isku arki jirin, waxay calaamad u tahay inuu problem ka jiro wadnahaaga. Waxaa wanaagsan dhakhtar kugu dhow wadnaha inaad la kulanto, baaritaan loo baahan yahay aad samaysid. Maalinta wadnaha ujeedada ugu weyn aan ka leenahay waxay tahay inaad bulshadeena ku wacyigelino halista ay leeyihiin cudurrada wadnaha, taasoo saan sheegnay wax laga hortagi kara ah haddii hab nololeedkeena aan wanaajino. Waa mahadsantihiin.